noloshayna waxa ay ka bilaabatay anagoo nisaqoon waxaan ku dhalanay meelo kala fog weligeen ismaana arkin balse awoodda Ilaahay ayaa adduunyada nagu kulmisay aragtidayda waad ku faraxday anigana sidoo kale aad baan ugu farxay ka helitaan iyo jacayl fara badan kadib waxaan go'aan ku gaarnay inaan isguursano oo aan mid noqono guurkeena maalinka uu dhacayo dadka waa ay faraxsan yihiin balse anigu waan murugaysanahay oo waxa la isaaray mas'uuliyad aad u weyn oo ah qof aniga nafsadeeda oo kale leh inaan u ahay mas'uul waxa waajib igu ah inaan ku sameeyo wax walba oo farxadaada ku xiran tahay balse waxaan u baahanahay 4 waxyaabood inaan helnaa midda koowaad sabar waa inaan ku sabraa marka aad dhibaataysan tahay sida marka aad uurka leedahay marka aad xanaaqsan tahay adiguna waa inaad sabartaa xilliyada aan murugaysanahay ama aan xanaaqsanahay si dhaxdeena uusan u imaan khilaaf midda labaad go'aan waa in uu go'aankeenu ahaadaa mid aan ku burburaynin si fudud go'aankeenu waxa uu noqon doonaa inaanan kala tagin ilaa ay geeriduna kala geyso mooyee midda saddexaad naxariis waa inaan isku naxariisanaa si Allah uu noogu naxariisto qaasatan marka aad xanuunsan tahay marka aan labadeena xaaladaha dhiban ku jirno waa inaan isdareensiinaa naxariis taasoo ku dhigan jacayl aad u weyn inaan isku qabno midda afaraad xal waa inaan xalinaa wax walba oo xumaan ah oo dhaxdeena ama familkeena soo dhaxgala si wada jir ahaan waa inaynu u xalinaa si aan u ilaashano mustaqbalkeena ifaaya